Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka wax ka baro video waxaan idiin soo gudbinayaa anigoo ah Maxamed Yare. Waxaan maanta mowduucan uga hadlaynaa micnaha guusha iyo waxyaabaha caado u ah dadka la odhan karo way guuleysteen. Haddaba ugu horreyn waa maxay guushu? Guusha ninba sibuu u yaqaanaa. Dad baa u yaqaana lacag badan oo ay helaan, tusaale ahaan inaad noqoto qof milyaneer ah. Qaar baa u yaqaana inaad ku guuleysato kursi siyaasadeed oo aad madaxweyne ama ra'iisul wasaare aad noqoto iyo sidee wasiirba. Sidoo kale qaar ayaa u yaqaana inaad qanacsanaan nafsiyeena gaadho oo aad kalsooni nafeed hesho. Haddaba guushu waa himilo iyo hiigsi aad leedahay oo aad gaadho, mana aha mid ku timaada xaglo laaban, sahal, fikir gaabni, hamiyari iyo samir yaraantoona. Guusha waxaa sargooya hanka, hiigsiga, humaagyada mustaqbaleed ee qofku meel dhigtay. Markaas waxay ka dhigan tahay nin waxa guul u ah ayaa mid kale u ah bilowga hayaanka guuleed ee uu hiigsanayo. Sida caadada ah, dadka aad fikir wadaaga tihiin waxay kaaga waramaan guusha markaas u muuqata ama ay arkaan. Hamiyada uu qofku ku fikirana waxa ugu mug weyn inuu ku guuleysto if iyo aakhiro. Haddaba waxaa mudan in la tilmaamo sidee loo gaari karaa guul, ama sidee baan guul ku gaari karnaa. Guusha waxaa lagu gaari karaa iyada oo la maro wadiiqooyin kala duwan oo aad markaa u arkayso inaad guusha ku gaari karto. Haddaba waxaa ka mid ah